بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد داوديال لما أنتين كسر دوادا برنامج كان قابا وحانا سببه عدسي إيغا قف كمد ولا لها والله واحد شاكتا qodobada ugu waaweyn ee ugu muhiimsan ee guusha oo haddii aan sameeyo aan noqonayo qof guulaysta haddaba qofka isaga intaan siin lahaa jawaab aniga jeebkayga ah waxaa igu soo dhacay xadiid uu noo sheegay xabiibkeena Muhammad calayhi asalaatu wasalaam xadiidka isaga ah nebigu waxa uu ku soo koobay qodobada asaasiga ah ee ugu waaweyn ee qofka haddii uu sameeyo uu guulaysanayo adduun iyo aakhiro intaba xadiidka anigu waxaan u bixiyey naqshada guusha waayo waxaan shaki lahayn qof walba oo qaata oo ku dhaqma oo fuliya inuu noqonayo qof guulaysta mar walba oo aad barnaamij qabanayso ama waxaad dhisayso waxaa qasab ah in aad haysato naqshad ama nidaam aad tixraacayso xadiidka isaga wuxuu noo sheegay 5 qodob ee ugu waaweyn ee ah naqshada guusha waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala inaan xadiidka aan qaadanno oo aan ku dul istaagno mid 5 qodob ee ugu muhiimsan ee xadiidka uu inoo sheegay sida noo muuqanaysa xadiidkan kelimadihiisa ayaa waxay yihiin kuwo aad iyo aad u kooban hase yeeshee macaanidiisa iyo xigmaduhu xambaarsan yahay ayaa waxay yihiin kuwo aad iyo aad u waaweyn una ballaaran waayo nebiga waxaa la siiyey calayhi salaatu wasalaam jawaamicu lkalim oo macnaheeda ay tahay inuu isticmaalo kelmado yar oo kooban laakiin xambaarsan macaani aad iyo aad u waaweyn oo wax badan tusaya wax badan laga fahmayo sida xadiidkan aad ka arkaysaan wamaa axlaa haada maxaa ka wanaagsan in guushaada aakhirada iyo adduunka lagu soo koobo kelmado yar oo kooban oo qof walba oo naga mid ah uu fahmayo wax badanna uu ka dhahan karo nebigu waxa uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'min aldaciif qofka mu'minka ah ee qawiga ah ee xooga badan ayaa waxa uu ka fiican yahay ilaahayna uu ka jecel yahay qofka mu'minka ah ee daciifka ah alqawiyu fi maada muxuu qawi ku yahay muxuu ku xoogan yahay muxuu ku adag yahay kelmadaasi waa caam lama soo koobin waxay tusaysaa wax walba oo wanaagsan qofka mu'minka ah ee caqiidadiisu adag tahay qofka mu'minka ah ee iimaankiisu xoogan yahay qofka mu'minka ah ee cilmigiisa diinta uu yahay mid aad iyo aad u sareeya qofka mu'minka ah ee waxyaalaha lagu waajibiya gudanaya oo ka soo baxaya ugana soo baxaya sidii loo baahnaa qofka mu'minka ah ee xoolihiisa ku bixinaya meesha loo baahan yahay iyo dadka masaakiinta inuu ku taakulayo qofka mu'minka ah oo laga ammaan helayo afkiisa iyo gacantiisa kelmadahaasi waxay tusayaan wax walba oo wanaagsan sidoo kale qofka mu'minka ah ee ku dadaalaya caafimaadkiisa qofka mu'minka ah ee ku dadaalaya aqoontiisa inuu ziyaadiyo qofka mu'minka ah oo isku dayaya inuu samaysto xirfad iyo skills uu ku shaqaysto si xalaal ah waxyaalahaas oo dhan ayaa laga fahmayaa kelmadda iyada ah qofka noocaas oo kale ah ayaa waxa uu ka fiican yahay qofka mu'minka ah ee daciifka ah oo iimaankiisu xooganayn oo caqiidadiisu ay adkayn oo cilmigiisa uusan badnayn oo waajibaadkiisa sidii loo baahnaa aan uga soo baxayn laakiin intuba way fiican yihiin dhammaantood kan xooga badan ee qawiga ah iyo kan daciifka ah waxay ka siman yihiin iimaanka oo labadoodaba waa labo macnaha wanaagsan hase yeeshee waxaa kala badan darajaadka ay leeyihiin oo qofka mu'minka ee qawiga ah ayaa waxa uu ka fiican yahay qofka mu'minka ah ee daciifka ah taas waa qodobka koowaad qodobka labaad ee xadiidka uu tilmaamay ayaa wuxuu yahay ixris calaa maa yanfacuk waxa aad ku dadaashaa waxaan ku anfacaya lama kala qaadin wax walba oo ku anfacaya aakhiradaada iyo adduunkaada intaba ku dadaal waa kelmad aad iyo aad u weyn aadna u culus waxayna soo koobaysaa wax walba oo qofka wanaag u ah hadday noqoto dhinaca adduunka ama hadday noqoto dhinaca aakhirada tusaale ahaan haddaad u baahan tahay inaad cilmigaada islaamka aad xoojiso xooji haddaad u baahan tahay inaad qur-aanka xifdisid xifdi haddaad u baahan tahay inaad masaajidda aad dhisto dhis haddaad u baahan tahay dadka masaakiinta inaad wax u qabato u qabo haddaad u baahan tahay inaad jamaacada ku tukato waqti walba aad awoodo ku tuko haddaad u baahan tahay inaad sadaqo baxsato baxso wax walba oo wanaagsan la imow haddaad u baahan tahay inaad cilmi ah ku shaqaysato oo adduunka ku anfacaya aad barato baro haddaad u baahan tahay inaad jaamacadaad aado aad
haddaad u baahan tahay inaad xirfad iyo skills aad yeelo taa micnaheedu waa maxay wax walba oo wanaagsan oo ku anfacaya la imow waa qodobka labaad ee muhiimka ah ee uu sheegay xadiidkan isaga ah xadiidkan qaybta saddexaad waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wastacin billaah waxa aad kaalmaysataa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbo aad u baahan tahay inaad samaysid oo ku anfacaya oo qodobkii labaad aan ku soo qaadanay oo ahaa ixris calaa maa yanfacuk waxaad u kaalmaysataa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku kadsoomin adiga aqoontaada cilmigaada shahaadooyinkaada kartidaada waxqabadkaada aftahnimadaada ha ku kadsoomin waxaad isu dhiibtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sababtoo ah aqoon walba aad leedahay xoolo walba aad leedahay hanti walba aad leedahay karti walba aad leedahay hadduu ilaahay ku waafajin ma samayn kartid ma qaban kartid marka waxaa lagu leeyahay waxaad isu dhiibtaa oo aad kaalmaysataa ilaahay subxaanahu wa tacaala qodobka afraad ee xadiidka uu sheega waxa uu yahay walaa tacjaz ya allah ma axlaa hadihi alkalimaat kelmadahan waa kelmado aad iyo aad u macaan oo qofka hadduu fahmo wax badan uu ka dhahan karo waxaa lagu leeyahay walaa tacjaz ha caajizin ha ka caajizin wixii waajibaadkaada ahaa ee xagga diiniga ah in aad la timaado ha ka caajizin wixii adduunka ku anfacayay ee loo baahnaa ee horumarkaada sabab u ahaa inaad ka caajisto ha samayn dhinac ka mid ah qofka waxaa lagala dagaalamayaa inuu isaga isku kalsoonaado keligii uu dhaho wax walba anaa qabanaya dhinaca kale waxaa la leeyahay ilaahay keliya ha tala saaran ee waxaa la timaadaa wixii loo baahnaa asbaabtii qaado meesha waxaa ka muuqanaya wa akhdu lasbaab oo macnaheeda ay tahay qofka wixii u sahlayay inuu waxaan qabto uu sameeyo inuu la yimaado inay muhiim ay tahay waa qodob afraad oo aad iyo aad muhiim u ah intaa marka aad samaysid maxaa ku xiga wain asaabaka shayun falaa taqul haddii wax xun ay kugu dhacaan oo aad kahanayso oo aad jeclaysan oo dhibaato ah oo caqabad ah ha dhihin low annii facaltu kaana kada wa kada haddii sida iyo sida aan samayn lahaa saa iyo saa ayay noqon lahayd laakiin waxaa dhahdaa qul qadara allahu wamaa shaaa facal ilaah ayaa qadaray ilaah ayaa jaangooyey ilaah ayaa saa ka dhigay ilaahna waxa uu sameeyaa waxa isaga uu doono qadarta ilaahay ayaa keentay raalli ayaan ku ahay qadarta ilaahay kama weyni sababtu waa maxay faina low taftaxu camala shaytaan sababtoo ah low waxa ay furtaa camalka shaydaanka laanna qofka waxaa loo diidayaa haddii dhibaato ay ku dhacdo ama caqabad ay ku dhacdo inuu iimaankiisa qalqal u ku yimaado waa sida inta badan dhacda dadkan caqiidada aan lahayn ama muslimiinta aan ahayn marka caqabad ay soo wajahda aad u adag way isku dhex yaacaan qalqal ayaa ka muuqda argagax ayaa ka muuqda laakiin qofka mu'minka ah ee muslimka ah ee caqiidadiisu adag tahay saa ma aha waxaa la leeyahay qul qadara allah wamaa shaaa facal waxaa dhahdaa ilaah ayaa sidaa jaangooyey ilaahna waxa uu sameeyaa waxa isaga uu doono sababtu waa maxay faina low taftaxu camala shaytaan sababtu ah low waxa ay furtaa camal shaytaan oo macnaheeda ay tahay meel xun ayay kugu hogaaminaysaa kelmadda low waxay ku geynaysaa oo ay kugu jiidaysaa meel aan fiicnayn oo dembi u kaaga imaanayo laakiin kelmadda low ayaa laba nooc ah mid xun oo midda xadiiska uu sheegayo iyo mid wanaagsan low hadday tahay inuu qofka waxyaalaha khayrka uu rajeeyo oo tamani lkhayr ay tahay tusaale ahaan qofka xaafadiisu ka soo baxay dad masaakiinuu la kulmay wuxuu ka soo tegey macnaha kaarkiisii lacagta ama boorsadii lacagtu ka soo tegey waxa uu leeyahay oo haddaan soo qaadan lahaa boorsadii lacagta sadaqaan baxsan lahaa dadka masaakiinta wax siin lahaa taasoo kale way fiican tahay laanna qofkan wuxuu tamaniyey ama uu jeclaystay in wax wanaag uu sameeyo laakiin waxaa la diidayaa qofka markii dhibaato ay ku dhacdo barnaamijkii uu samaysto oo wixii loo baahnaa uu la yimaado oo dhibaato ay ku dhacdo caqabad ay ku timaado waxaa la diidayaa in uu la dagaalamo qadarta ilaahay soo midda lagu diidayo oo low ah waa midda aad kula dagaalamayso qadarta ilaahay aad leedahay waxan maxay u dhaceen waay waxan u dhaceen maxaa saa u sameeyey laakiin midda ah tamani lkhayr in waxa wanaaga aad jeclaysato taasoo kale waa lagu ogol yahay qodobka isagana waa qodobka shanaad ee xadiidka uu tilmaamay haddaba ugu dambayntii ikhwaani xadiidka hadda aan soo qaadana waxa uu tilmaamay
qodobo aad iyo aad muhiim u ah 5 qodob oo asaasi ah foundation ah saldhig ah oo nagu caawinaya inaan guulaysano aakhiro iyo adduun intaba haddaba waxaa noo sameeyey naqshadaad u jeedaan oo ku dhisan oo aan kala soo dhexbaxay xadiidkii hadda aan soo qaadanay naqshadan iyada ah waxay nagu caawinaysaa inaan fahamno xadiidka hadda aan soo qaadanay qodobadii aan soo qaadanay siday u kala horeeyaan ama u kala weyn yihiin ama u kala muhiimsan yihiin waxaan u bixiyey naqshadan iyada ah naqshada guusha qodobkii koowaad ee ahaa almu'min alqawiyu waxaa tusaya meesha ugu hooseysa ee dhexda ah ee bu'da ah ee muhiimka ah ee foundationka ah ee asaaska ah waana qodobka koowaad saa ujeedaan hoos ayuu ka bilaabanayaa dhexda ayuu ka bilaabanayaa kadib ayuu kor u soconayaa qodobka labaad ee ahaa ixris calaa maa yanfacuk waxaa ku dadaashaa waxa ku anfacaya waa qodobka labaad marka caqiidadaada adkaato oo diintaada adkaato oo foundation adag ay yeelato oo dabaylaha aysan ku gelgelin ayaad waxaad u gudbaysaa qodobka labaad ee ah maxay ixris calaa maa yanfacuk waxaa ku dadaashaa waxa ku anfacaya hadday noqoto aakhiradaada iyo hadday noqoto adduunkaada intaba qodobka saddexaad ayaa wuxuu yahay kan ku xiga oo ah kaasho allah wastacin billaah waxaad kaalmaysataa ilaahay subxaanahu watacaala marka qodobka labaad aad samayso oo qorshahaada aad degsato oo plaankaada aad samaysato oo meel aad ku dhigato aad u baahan tahay inaad ku dhaqaaqdo intaadan ku dhaqaaqin ka hor waxaad samaysaa maxay ilaahay kaasho istikhaara tuko duca samee ilaahay bari subxaanahu watacaala inuu ku waafajiyo sida wanaagsan ha ku kadsoomin adiga xeeladaada aqoontaada shahaadooyinkaada kartidaada iyo wax la midka ah sababtoo ah intaa keliya wax kuma helaysid waxaa muhiim ah oo intaasoo dhan ka muhiimsan ilaahay inuu ku waafajiyo oo ilaahay aad kaalmaysato qodobka afraad ee ku xiga waxa uu yahay fuli qorshahaada inaad qorshahaada aad fulisid oo markii aad macnaha ilaahay kaashato oo isticaanadii aad la timaado waxaad u dhaqaaqaysaa maxay tanfiid inaad bilowdid oo aad fulisid barnaamijkaada waana muhiim oo ha ka caajisin dib ha u dhigin ha ka qalbi jabin markii inta aad samaysa kadib laba midkood markaa meesha aad taagan tahay oo qorshahaada aad fulinayso waa laba mid labadaa waxay kale yihiin ama inaad guulaysato ama inaad guulaysan weydo haddii aad guulaysato dadka bani aadanka ah way yaqaanaan waxay samayn lahaayeen waxaad ku noqonaysaa qodobkaadii labaad oo ah inaad samaysato qorshe kadib kor ayaad u soo baxaysaa ilaahay kaasho den kadib maxaa ku xiga inaad qorshahaadii aad fulisid mar walba sida ayaa ku wadaysaa si isdabajoog ah taas waxaa loo yaqaanaa waa luud macnaha wareeg aan dhammaad aan lahayn ilaa adiga adduunka intaad joogtid saa ayaa ku wadaysaa ilaa barnaamijkaada qorshooyinkaada taxanaha ah intay kaaga hagaagayaan waana qodob aad iyo aad muhiim u ah laakiin sida hadday aan soo xusay xadiidka waxaa ku duugan macno aad iyo aad u weyn macnaha wuxuu yahay haddii aad guulaysan weydo barnaamijkaada hadduu shaqayn waayo haddii uu kuu fuli waayo hadduu noqon waayo sida aad jeceshahay maxaad samaynaysaa laanna qofka markuu u baahan yahay in la caawiyo waa marka barnaamijkiisii uu ka dhicisoobo uu shaqayn waayo hadduu qofka guulaysto niyaddiisa way dhisan tahay horuu u soconayaa barnaamij kaluu bilaabayaa laakiin hadduu guulaysan waayo maxaa dhacaya qofka qalbijab ayaa la soo gudboonaanaya haddaba si lagaaga bixiyo qalbijabka isaga ah oo lagaaga difaaco ayaa waxaa laguu sheegay daawadeedii aan daawada waa maxay hashalaayin waa qodobka shanaad ee u dambeeya hashalaayin laanna waataan soo qaadanay fa ina low taftaxu camala shaytaan sababtoo ah low waxay furtaa waa camalu shaytaan meel xun ayay kuu jiidaysaa taa ha samaynin ka digtoonow ayaa lagu leeyahay inaad saa samaysid waxaan idin tusayaa qodob kale oo muhiim ah waxaan idin tilmaamayaa qodob kale oo muhiim ah oo xadiidkan ku duugan waxa uu yahay meesha lagu leeyahay yeelo iimaan adag waa number 1 number 2 waxa ah samayso qorshe oo qorshaha aad samaysanayso waa inuu yahay mid ka imaanaya diinta waa inuu yahay mid diinta ogoshahay waa inuu yahay mid diinta ay ku banaysay haddii qorshahaada uu ka hor imaanaya diinta haddii qorshahaada uusan waafaqsanayn diinta haddii qorshahaada uusan ahayn mid ku dhisan diinta islaamka qorshaha isaga ah ka digtoonow oo ka joog laanna waxaa laga soo bilaabay almu'minu alqawiyu mu'minka qawiga macnaheedu waa maxay miisaan ayuu leeyahay miisaan ayuu haystaa miisaanka isaga waa maxay wax walba uu sameynayo wuxuu ku dhisayaa waa diinta islaamka tusaale ahaan waxaad u baahan tahay inaad guri iibsato qorshe ayaad degsatay inaad guri gadato laakiin gurigaa waxaa ku gadanaysaa waxaa waaye waa loon
inaad dayn qaadatid. Daynta iyada ah waxaa la socda interest. Intaadan ku dhaqaaqin qorshaha isaga ah maxaa loo baahan yahay? Waa inaad u bandhigtaa diinta maxay ka qabtaa, ma bannaan tahay mise ma bannaana. Qof walba muslim ah oo caqiidadiisu adag tahay, diintiisu xoogan tahay, wuxuu fahamsan yahay in la qaato loan ama mortgage oo ah interest inay mamnuuc tahay, xaraam, laa yajuuz, ma bannaana. maadaama qorshihii aad samaysatay diinta uu ka hor yimid maxaa loo baahan yahay? waana ka istaagtaa wana dhahdaa khalaas waa ka noqonayaa. haddii adiga aqoonteeda aadan lahayn maxaa loo baahan yahay? waa inaad raadsataa dad aqoonteeda leh, waana dadka ahlucilmiga u tagtaa dhahdaa mashruucaasaan wataaye diintu maxay ka qabtaa, oo marka iyaga ay kuu sheegaan. laakiin qorshahaada oo ah steebka labaad, haddii uu ka hor yimaado diinta islaamka waa inaad qorshaha gebi ahaanba aad ku dhufataa oo iska turtaa. laakiin haddii qorshahaada uu yahay mid fiican oo wanaagsan oo diinta waafaqsan, waxaad u gudbaysaa qodobka ku xiga ee saddexaad. haddaba ugu dambayntii naqshadan iyada ah waa naqshad kuu sahlaysa in aad guulaysato. saa ujeedaana waa circle ama waa wareeg ama waa loop, oo macnaheeda ay tahay qorshooyinkaada iyo guulahaada waa inay noqdaan kuwa isdaba joog ah. waxaa ka bilaabaysaa steebka koowaad number 1 oo ah yeelo iimaan adag, almu'min alqawiyu. waxaad u gudbaysaa steebka labaad oo ah samayso qorshe, ixris calaa maa yanfacuk. kadib waxaad u gudbaysaa steebka saddexaad oo ah kaasha allah wastacin billaah. kadib waxaad u gudbaysaa steebka afraad oo ah fuli qorshahaada oo ah walaa tacjaz. kadib waxaad u gudbaysaa steebka shanaad oo ah hashalayn, wain asaabaka shayun falaa taqul low annii facaltu kaana kada wa kada. haddaba shantaa qodob haddii aad samaysid si isdaba joog ah, mar walba waxaan shaki lahayn in guulahaadu ay noqonayaan guulo isdaba joog ah, hadday noqoto midda aakhirada iyo hadday noqoto midda adduunka. la'anna wax walba aad samaynayso waxay ka imaanayaan oo ay ku dhisan yihiin caqiidadaada oo ah midda ugu hoosaysa. haddaba daawadayaal, xadiidkan waxaan ka soo ogaanay in guusha dhabta ah ee xaqiiqada ah aysan ahayn guusha xagga adduunka. hase yeeshee guusha dhabta ah ee xaqiiqada ay tahay in qofka mu'minka qalbigiisa uu ku xirnaado allah subxaanahu wa tacaala meel kasta uu joogo, kadibna adduunkiisa uu u shaqaysto una dadaalo. waxaan xasuustaa waana wax ku ool ah oo ay siiyeen waalidkay oo ahayd maandhow. aakhiradaada waxaa ku qabsataa gacanta midig, adduunkaada waxaa ku qabsataa gacanta bidix. waana aad iyo aad muhiim ah oo ay kala soo dhexbaxeen xadiidka isaga ah. waxaad igu soo ducaysaan waalidkay in adduunka inta ay joogaan uu siiya caafimaad wanaagsan, aakhirana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu geeyo fii jannati alfirdaws alaclaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa fii amaan illah.